Assalaamu calaykum daawada kusoo dhawow xiskaal. Waxaan noo socday barnaamijkeeni QuickBook. waxaanu soo gaarnay casharkeeni saddexaad. Casharkii ugu dambeeyay wuxuu ahaa sida inventory-ga loo diiwaangeliyo aba badeecada ku taalo baqaarka si ay u diiwaangelin lahayd. Badeecada diiwaangelina maalin hore waxay ahayd Mobile J2. haddii aad soo eegay waxaad ka eegi kartaa list item list kadibna badeecada halkaas ay kaaga muuqaneen. Mobile J2 150 xabo. Calaa xabad inta kugu fadhiyo hadaa rabto waa ku dhufanay 2 mar. kadibna waxaa meesha kaaga soo muuqana calaa xabad inuu kugu fadhiyo $50. sidoo kale waxaa sameyn kartaa reportka ayaa ka eegi kartaa reportka kadibna waxaa sameynaya inaad ku dhufato company and financial meesha ku qoranta kadibna balance sheet standard kusoo dhuf. meesha waxaa kaaga muuqana inventory assetka hantida guud inay tahay oo inventory-ga 7500. macnaha wuxuu isku dhufanayaa 150 ka xabo oo mobile-ka ahay calaa xabad meequu kugu fadhiyo $50. isku dhufashada labada xabo waxay tagay markaa 7500. hantida guud waa intaa. sidoo kale equity-ga open balance equity-ga waxa weeyaan 7500 maadaama hantidan aan la magacaabay cid iska lahayd. maanta waxaan baranaynaa casharkeena saddexaad ah sida maadaama macaamiil badan aan leedahay sida macaamiisha u diiwaan gelin lahayd. markii aad rabto inaad macaamiil diiwaan geliso oo soo gasho QuickBook waxaa sameynaysaa inaad ku dhufato customer kadib customer center. qaaradana ku soo baxayso iska weynayso kadib meeshan cadaanka imaad kadibna right click dheh. meeshan waxaa ku dhufanaya ay ku qoran tahay new customer. halkan waxaa gelinaysaa macaamilka magaciisa. tusaale ahaan oo kale Cali Xasan iska dheh. Cali Xasan. sidoo kale meesha waxaa gelinaysaa company-ga magaciisa oo u shaqeeyo ama company-ga uu leeyahay asiga. haddii qof dumar tahay haddii qof ay tahay raga magaciisa ugu horeeyay iyo magaciisa ugu dambeeyay waxyaabahan kale oo iska faahfaahin. sidoo kale email hadduu leeyahay meeshan geli. telephone haddii uu leeyahay main phone meesha ku qoran tahay geli. sidoo kale mobile-kiisa shaqada halkan ayaa gelinaysaa. qaybtan payment-ga hadaa imaato waxaa inta ka sameyn kartaa credit limit wax la yiraahdo. maadaama ninkan macaamiil uu ku yahay deen uu ka qaadanayo waxaa inta dhihi kartaa ninkan hadduu $100 ka sara maro deenkiisa isoo ogeysii macnaha. marka meeshan safe dhahdo ninkan $100 ka badan hadduu qaato QuickBook kusoo ogeysiina. $101 xataa hadduu qaato kusoo ogeysiina. ninkan waxaa uu gashay inuu qaato $100 oo deena kaliya. saas sida daraad waxaa leedahay safe iska dheh. intaas ayaa faahfaahin ugu filan. Cali Xasan oo payment-giisa ugu badan ay tahay $100. enter amba okay dheh. Cali Xasan halkaas ayuu kaaga soo muuqana markaa ka eegto customer center halka ayuu kaaga soo muuqana. casharka xiga ayaanu ku baran doonaa sida customer-kan deen u sii lahayd iyo haddii $100 u dhaaf sidoo ku soo xasuusinaa sidoo sameynaa QuickBook. casharka xiga inta ku kulmayno. Assalaamu calaykum.